وحلقة لبعض امتحانها كن هبين يو هبين هذه أي تهمر كي كواد يا تنا كان صوب وقنيسو فضلا سبسكرايب كتابو لايك تنصار كم برا كنا دارو سيكوسو قرن مقالة دي عصبي أنا جنا إدي تجريني ونقطه إمي كنا دعوة شوان boqor Shahriyaar markuu arkay waxa xaaskiisu ay sameynayso ayuu aqligiisii duulay wuxuuna walaalkiisii ka yaraa ku yiri nabad walaalo meeshan aynu iskaga tagnay waxba ugama baahin boqortooyadan ilaa aynu ka soo arkayno in adduunkan ay ku nool yihiin dad inala mid ah amaba inaga liita wuu ka ogolaaday kadibna labadoodii si wada jir ah ayay u baxeen iyaga oo qasriga qaab qarsoodi ah uga baxay waxay safar ku jiraanba markii ay daaleen ayay geed hoos fadhiisteen iyaga oo daalan geedku waxa uu dhawaa bad meesha ku taalay iyaga oo bartii ku nasanaya ayay baddii hal mar kacday waxaana ka soo baxay wax aad moodo tiir weyn kaasoo dhulka isku shareeray markay arkeen ayay cabsi dareemeen markaasay geedkii orod ku fuuleen waxaanay sii fiirinayeen waxaan badda ka soo baxay waxa uu yahay waxa ay arkeen waxaan badda ka soo baxay inuu ahaa shinni aad u weyn aadna u dheer oo feero waaweyn wuxuuna madaxa ku xambaarsanaa sanduuq weyn shinnigii sidii uu u soo socday waxa uu yimi geedkii ay labadii boqor saarnaayeen hoostiis markaas ayuu geedka hoostiisii fadhiistay oo inta uu furay sanduuqa weynaa uu ka soo saaray sanduuq kale sanduuqii kale ayuu sii furay waxa uu ka soo saaray gabadhaad moodo xuuralacayntii jannada quruxdeedana aad yaabayso sidii dayaxana u ifaysa markaas ayuu jinnigii gabadhii ku yidhi boqoradii xorta ahaydey waatan ku soo afduubtay habeenkii aqalgalkaagee waxa aan rabaa hadda inaan xoogaa yar seexdo markaas ayuu dhabteeda inta uu madaxa saaray ku seexday gabadhii iyada oo meelaha fiirfiirinaysa ayay isheedu ku dhacday labadii boqor ee geedka saarnaa markaasay madaxii jinniga dhabteeda ka qaaday oo dhulka dhigtay kadib inta ay u soo jeesatay dhankii labadii boqor ayay u ishaartay inay soo degaan waxay yidhaahdeen jinka cifriidka ah ayaanu ka baqaynaa uma soo degayno waxay ku tidhi soo dega haddii kale oo diidaan cifriidkan ayaan kicinayaa markay lafahoodii u baqeen ayay soo degeen markay soo degeen ayay ku tidhi labadiinna waxaan idinka rabaa inaad ila tumataan oo aad ila raaxaysataan way ka diideen hase yeeshee waxa ay ugu hanjabtay inay jinniga soo kicin doonto oo uu si xun u dili doono markaas ayay sameeyeen waxay rabtay markay hawshii dhammeeyeen ayay jeebkeeda ka soo saartay kolay yar oo ay ku jiraan in ka badan 570 faraati ama fargal kadib labadii nin ayay weydiisay ma garanaysaan waxa ay yihiin faraatiyadani waxay dhaheen maya ma garanayno markaas ayay ku tiri jinnigan aad u jeedaan wuxuu i soo afduubtay habeenkii aqalgalkayga wuxuuna igu xidhay sanduuqan isaga oo ku sii xidhay 7 quful wuxuuna igu riday badda gunteeda si uu iga ilaaliyo wax nin ah sidaas oo ay tahayna waxaan la tuntay dhammaan nimankii faraatiyadan lahaa ee idinkuna isiiya faraatiyadiina labadii boqor markay hadalkaas maqleen aad ayay u yaabeen waxayna isku yidhaaheen haddiiba cifriidkan weyni gabadhan uu sidaas oo dhan u ilaalinayay arrinkani ku dhacay wixii innaga inagu dhacay waa salleelo markaas ayay labadoodii oo yaabani degdeg meeshii uga soo tageen waxayna ku soo laabteen boqortooyadii boqor Shahriyaar oo aad u xanaaqsan ayaa yimi qasrigiisii waxa uuna amar ku bixiyay in la soo qabto naagtiisii shaariyadihii iyo adoomihii la tuntayba waana la soo wada qabtay halkaasana dhammaantood kurka laga wada gooyay intaas kuma uu ekaanin boqor Shahriyaar wuxuu amar ku bixiyay in habeen kasta gabadh cusub oo bikra ah loo soo guuriyo subaxiina kurka laga gooyo wuxuu xaalku sidaa ahaadaba muddo 3 sano ah kadib waxa la waayay wax gabadh ah oo hablihiiba waxa ay noqdeen wax la dilay iyo wax cararay wasiirkii u qaabilsanaa boqorka dhanka guurka maalintaas marka uu soo waayay wax gabadh ah oo uu dhiso ayuu gurigiisii yimi isaga oo aad u murugaysan wasiirkaasi waxa uu dhalay 2 gabdhood oo aad u qurux badan taweyn waxa la dhihi jiray Shahrazad tayarna Dunyazaad gabadha weyn ee Shahrazad waxay ahayd gabadh aqoon-yahanad ah oo wax badan ka taqaanay kutubta taariikhda iyo sheekooyinkii boqoradii hore iyo wararkii ummadihii hore waxaana la sheegay in gabadhaas Shahrazad ay baratay in ka badan 1000 kitaab oo ku saabsan taariikhihii iyo sheekooyinkii hore Shahrazad waxay ahayd gabadh aad u caqli badan waxaana ay aragtay aabaheed oo wajigiisu murugo ka muuqato markaasay ku tiri aaba maxaa kugu dhacay oo sidan oo dhan ula murugaysan tahay markaas ayuu wasiirkii gabadhiisii u sheegay siday wax u jiraan wuxuuna ku yidhi waxaa laga rabaa inaan caawa boqorka gabadh u soo dhiso haddaan u soo dhisi waayana kurka ayaa laga goynayaa Shahrazad waxay aabaheed ku tiri aabow aniga ii guuri laba mid un bay noqonaysaa in la dilo ama inaan madax furasho u noqdo gabdho badan oo muslimiin ah oo halaagsami lahaa markaas ayuu wasiirkii yidhi waan kuu baqayaa inantaydii naftaada halis ha gelin waxay ku tiri waan ku qasbanahay midaas oo waa lagama maarmaane ii guuri aabo odaygii wuxuu inantiisii ugu jawaabay waxaan kaaga cabsanayaa inay kugu dhacdo wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninka beeraleyda ahaa iska lahaa markaasay tiri oo maxaa ku dhacay aabow
wasiirkii wuxuu gabadhiisii ku yidhi ogow gabadhaydii inuu jiray nin beeraley ah oo xoolo dhaqato ahaan jiray wuxuuna lahaa xaas iyo carruur ninkaasi alle subxaanahu watacaala wuxuu ugu deeqay aqoonta luuqadaha xayawaanka iyo shimbiraha laakiin haddii uu ka xog warramo inuu aqoontaa yaqaano wuu dhimanayay ninkaas beeraleyda ahay waxa uu lahaa dameer iyo dibi dameerka shaqadiisu waxay ahayd inuu ninka qaado oo meesha uu doonayo uu ku aado halka dibigana shaqadiisu ay ahayd in subaxii ilaa iyo galabtii beerta lagu falo maalintii dambe dibigii ayaa u yimid dameerkii isagoo iska fadhiya oo caws iska cunaya biyuhuna ay iska ag yaallaan waxaanu ku yidhi niyow adiga way kuu dhacatay anigu waan daalay oo tabcaan ayaan ahay sidii beer laygu falaayay laakiin adigu halkan ayaad cawska iska ruugaysaa shaqo badanna ma qabatid markaas ayuu dameerkii yidhi talanku siinaya ay dhegayso berri marka lagu yimaado oo xadhigga iyo tiirka yaambada beerta lagu falaayo lagugu xidho iska fadhiiso hana istaagin xitaa hadday ku garaacaan oo aad kacdo mar kale dib u fadhiiso markay kaa dareemaan tabardarri waxa ay kuu keenayaan bal iyo caws si aad xoog u yeelato ee ha cunin cuntada iyo cabistana jooji ilaa iyo 2 maalmood sidaas ayaana shaqada badan kaga nasan kartaa ninkii beeraleyda ahaa sheekadooda wuu maqlaayay wuuna la yaabay subaxii ku xigay markii la gaadhay ayuu dibigii diiday inuu kaco si kasta oo la isugu dayeyna uu kici waayey markaas ayuu ninkii beeraleyda ahaa yidhi dameerka ha la wado oo beerta isaga ha lagu falo markaasa dameerkii inta la waday maalintii oo dhan beerta lagu falay galabkii markii uu dameerkii moorada ku soo laabtay waxa uu dibigii uga mahad celiyey abaalkii uu u sameeyey iyo taladii uu siiyey laakiin dameerkii uma uusan jawaabin isagoo si xun uga shaleeyey taladaa uu dibiga siiyey maalintii labaad ninkii beeraleyda ahaa waxa uu u yimid dameerkii mar labaad ayaana beertii lagu soo falay galabtii isagoo tacbaan ah markii uu ku soo laabtay xaradii waxaa mar kale u mahad celiyey dibigii laakiin dameerkii ayaa markan ku yidhi dibigii war talaan kuu hayaa niyow waxaan maanta maqlay ninka beeraleyda ah oo shaqaalihiisa ku leh haddii berri dibiga uu kici waayo waxaad u geysaan kanwaanlaha si uu u qalo sababtoo ah wax faa'iidaha oo lagu qabo maba laha mar haddaanu beerta falaynin markuu dibigii hadalkaas maqlay ayuu haddana dameerkii u mahad celiyey wuxuuna yidhi berri hawl baa ii taalla ninkii beeraleyda ahaana sheekadooda wuu maqlaayay waagii markii uu bariyey dibigii waxa uu bilaabay inuu wax badan cuno isagoo shaqadiisu diyaarinaya subaxnimadii markii la gaadhayna ninkii beeraleyda ahaa waxa uu arkay fagfagta dibiga ka muuqata iyo siduu shaqada diyaarka ugu yahay markaasuu qosol la dhacay naagtiisii oo meesha ka dhoweyd ayaa tidhi maxaad ku qoslaysaa ninkii wuxuu yidhi haddaan kuu sheego waxaan ku qoslaayo waan dhimanayaa waxay tidhi gabadhii ii sheeg xataa haddaad dhimanayso markay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii isugu wacay si uu u dardaarmo dadkii ayaa isku dayey inay naagta la hadlaan oo ka celiyaan laakiin way diiday waxaana tidhi waan ogahayoo ninkani aniga ayuu igu qoslayaaye ha ii sheego waxa uu ku qoslaayo hadduu doono haba dhintee ninkii beeraleyda ahay naagtiisa aad ayuu jeclaa waxa uuna go'aansaday inuu sheego gurigiisa ayuu qabtay si uu 2 ragcadood oo sunno ah u soo tukado isaga oo guriga ku dhex jira ayuu maqlay eygii guriga joogay oo diigga la hadlaaya kuna leh diigow adigu halkanaad 50 digaagood iska dhex fadhidaa saaxiibkeenna uu dhimanaya markaasuu diiggii yidhi wallaahi saaxiibkeen haddii uu caqli leeyahay naagta uu iska edbin lahaa anigu 50 digaagood ee ila jooga hadday midi iga xanaaqdo inta aan edbiyo ayaan kuwa kale dhexda ka galaa waxaa fiicnaan lahayd in saaxiibkeena naagtiisa edbiyo ilaa ay ka toobad keenayso ninkii beeraleyda ahaana hadalkaas uu maqlaayay kadib wuu soo baxay wuxuuna u yeedhay naagtiisii waxauna ku yidhi qolka soo gal goonni ayaan rabaa inaan kugu sheegee markii qolkii soo gashay ayuu si daran u garaacay ilaa ay ka qaylisay qasabna ay ku toobad keentay halkaas ayayna naagtii hadalkeedii kaga noqotay dadkiina ku farxeen maadaama ay noloshiinii ku badbaaday markaas ayuu wasiirkii gabadhiisii ku yidhi adigana sidii dameerkaas oo kale inay kugu dhacdo ayaan kaaga baqayaa intaad isleedahay dad kale badbaadi markay Shahrazaad maqashay sheekadaas ayay tidhi wixii dhacayaaba ha dhacaane aabba boqorka ii guuri anigaa u diyaar ahay sidii ayaa boqorkii gabadhii loogu guuriyey waxayna gabadhii Shahrazaad ahayd sii dardaarantay walaasheedii ka yarayd ee Dunyazaad iyada oo ku tidhi marka boqorka la ii geeyo waxaan kaa codsanayaa habeenkaas marka uu dantiisa iga boogto inaad wehel ii noqoto haddii uu ogolaado waxaad igu tidhaahdaa abbaayoy maad nooga sheekaysid sheeko cajiib ah oo ka mid ah sheekooyinkaagii halaasiga ahaa maadaama aad berri naga tegaysid oo lagu dilaayo aniguna sheeko uu boqorku ka helo ayaan bilaabayaaye kadibna gabadhii sidii ayaa lagu gelbiyey markii boqorkii loo geeyey ayay gabadhii Shahrazaad ahayd oyday markaasuu boqor Shahriyaad ku yidhi maxaad la ooyeysaa waxa ay tidhi waxaa jirta gabadh walaashay ah oo iga yar waxaana rabaa inaan soo sagootiyo ee ii ogolow markaasuu boqorkii u ogolaaday kadib markii ay Dunyazaad timi ayay habsiisay iyada oo walaashay sagootinaysa markaasay Dunyazaad tidhi abbaayoy intaanan kaa tegin maad nooga sheekaysid sheekooyinkaagii halaasiga ahaa mid ka mid ah Shahrazaad ayaa tidhi waan ka sheekaynayaa haddii uu boqorku ii ogolaado markii uu boqor Shahriyaad hadalkeeda maqlay ayuu yidhi bal sheeg aan maqalnay sheekooyinkaagaas mid ka mid ah halkaas ayuu ka bilaabmay habeenkii koowaad ee sheekooyinka kun habeen iyo habeen xaqadeena maanta halkaas ayaynu ku soo afmeeraynaa
intaynu xaqadanta ku xigta aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.